195 waddan ee adduunka ka jirta 11 dal oo ka mid ah waxa uu magacoodu ka bilowdaa xarafka E. Waxay ku yaalaan 6 ka mid ah 7 qaaradood ee adduunka. In ka badan 215 milyan oo qof ayaana ku nool 11kaas waddan. Maanta waxaan baranaynaa 11 waddan ee uu magacoodu ka bilowdaa xarafka E, qaaradaha ay ku kala yaalaan, tirada dadka ku nool, baaxadda waddamadan iyo xogo kale oo badan ee ku soo dhawaada mawduuceena. soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. iyadoo Afghanistan ay tahay magaca inta badan la isticmaalo loona yaqaano, haddana magaca rasmiga ah ee qarankan u diiwaan gashan waa Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya, waana waddan xiran oo aan bad lahayn. Afghanistan waxa uu xuduud la leeyahay waddamada kale ah Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan iyo Shiinaha. Kabul waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalka, waxaana ku nool 5 milyan oo qof. magaca rasmiga ah ee Albania waa Jamhuuriyadda Albania. qarankan waa Muslim, qaarad ahaan ku yaala koonfur bari Yurub. dhanka bariga waxa ay xuduud kala wadaagtaa waddamada kale ah Montenegro, Kosovo, waqooyiga Macedonia iyo Greece. magaalada Tirana ayaa ah caasimadda iyo magaalada ugu dadka badan waddanka, waxaana ku nool in ku dhow 1 milyan. magaca waddankan oo dhammaystiran waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadweynaha ee Algeria, waxa uu ku yaalaa waqooyiga Afrika. Algeria waxa ay xuduud la leedahay 6 waddan oo kale ah Tunisia, Libya, Niger, Mali, Mauritania iyo Morocco. Algiers waa caasimadda dalka, sidoo kalena waa magaalada ugu weyn Algeria, waxaana ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof. magaca rasmiga ee dalkan waa maamulka Andorra. dalkan yar waxaa dhanka waqooyi xuduud kale leh Faransiiska, halka dhanka koonfureedna uu xuduud kale leeyahay Spain. caasimadda dalka Andorra waa Andorra la Vella, sidoo kale waa magaalada ugu weyn dalka, waxaana ku nool 24,200 qof. magaca rasmiga ah ee dalkan waa Jamhuuriyadda Angola, waxayna ku taallaa koonfurta Afrika. bariga waxa ay xuduud kala wadaagtaa waddamada kale ah Namibia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Zambia. Luanda waa caasimadda Angola, sidoo kale waa magaalada ugu weyn ee dalka, waxaana ku nool in ku dhow 10 milyan oo qof. Antigua and Barbuda waa waddan jasiirad ah oo madax bannaan, waana qayb ka mid ah jasiiradaha Leeward. waddanku waxa uu ka kooban yahay dhowr jasiiradood oo ay ugu weyn yihiin labada jasiirad ee uu waddanku ku magacaaban yahay. dal jasiiradeedkan waxaa loo arkaa inuu yahay qayb ka mid ah waqooyiga Amerika. St. John's oo ku taalla jasiiradda Antigua ayaa ah caasimadda, waana magaalada ugu dadka badan waddanka oo ay ku nool yihiin 24,226 qof. magaca rasmiga ah ee dalkan waa Jamhuuriyadda Argentina, waxa uu ku yaalaa koonfurta Amerika, waxaana dhinac bari ka xiga badweynta Atlantic. xuduudaheeda dhuleed waxaa la wadaaga waddamada kale ah Chile, Bolivia, Brazil iyo Uruguay. caasimadda dalkan ahna magaalada ugu weyn waa Buenos Aires, waxaana ku nool 15,490,000 oo qof. Jamhuuriyadda Armenia waxay ku taallaa galbeedka Aasiya, waxaana uu xuduud la wadaagaa waddamada Turkiga, Georgia, Azerbaijan iyo Iran. magaalada caasimadda u ah Armenia waa Yerevan, sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan dalka, waxaana ku nool 1 milyan iyo bar. Australia waa waddanka kaliya ee ku baahsan qaarad dhan, waxaana ku fadhiyaa dhul aad u baaxad weyn. Canberra waa magaalo madaxda dalka, sidoo kale Sydney waa magaalada ugu weyn Australia, waxaana ku nool in ka badan 5 milyan oo qof. Austria waa waddan ku yaala bartamaha Yurub, mana laha wax bad ah. waxaa xuduud la leh waddamada kale ah Jarmalka, Jamhuuriyadda Czech, Slovakia, Hungary, Slovenia, Italy, Switzerland iyo Liechtenstein. Vienna waa caasimadda Austria, sidoo kale waa magaalada ugu weyn dalka, waxaana ku nool in ku dhow 3 milyan oo qof. magaca rasmiga ah ee waddankan waa Jamhuuriyadda Azerbaijan, waxaana uu ku fidsan yahay dhulkan xuduudka Yurubta bari iyo galbeedka Aasiya. dalkan waxa uu dhanka bariga xuduud kale leeyahay waddamada kale ah Russia, Georgia, Armenia, Turkiga iyo Iran. caasimadda dalka ahna magaalada ugu weyn waa Baku, waxaana ku nool in ka badan 5 milyan oo qof.